haddii ay jirto hal dhaqan oo aan ka baranay madaxweyne Farmaajo 4 sano uu xilka hayay waa siyaasadda qariska tuurnimada ah iyo go'aanada aan laga fiirsan ee uu qaato kadibna isaga ku soo noqda kasoo bilow diibistii qalbi dhagax dekedihii loo saxiixay Itoobiya askartii la geeyay Eritrea ilaa isku dayay muddo kororsigii fashilmay Farmaajo caan kuma ahan go'aan qaadasho saxan wuxuu mar kale toddobaadkan sidaas sameeyay kadib markii uu soo saaray amru isku dayay inuu ku xakameeyo awoodda fulinta ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble inkastoo go'aankaasi uusan sharciyad u haysan Farmaajo ayaa wareegto ku sheegay in laga reebay xukuumadda iyo hay'adaha dawladda in ay galaan ishaafgarad ama wada hadal saameynaya mustaqbalka dalka madax bannaanida qaranka seeraha dhuleed iyo kambadeed ee dalka iyo ganacsi lala gala dawladda kale inta doorashada lagu guda jiro hase yeeshee ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa si aan lexleexasho lahayn uga jawaabay Farmaajo una sheegay in awoodda fulinta dalka ay leedahay xukuumadda sida ku cad qodobka 97 ee dastuurka dalka qoraalada ay isugu jawaabeen Farmaajo iyo Roble waxaa xigay in Roble talaadadii uu ambabaxay dalka Kenya halkaas uu heshiisay ay kamid yihiin dib u soo celinta xiriirka diblomaasi kula galay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta tallaabada uu qaaday ra'iisul wasaare Roble intii uu ku sugnaa magaalada xeebta Mombasa waxay ka dhigan tahay in qoraal ahaan iyo ficil ahaanba uu ku gacan saaray isku daygi uu Farmaajo ku doonayay inuu ku xakameeyo kaaga sii daranay waxaa la filayaa in Roble markuu dalka ku soo laabto uu si rasmi ah dib ugu fasaxo qaadka dalka Kenya ee la keeni jiray Soomaaliya uu Farmaajo xayiray si xubno ka tirsan qoyskiisa ay dalka u keenaan qaadka ka imaanaya Itoobiya oo ay ka faa'iidayaan maxay uga dhigan tahay Farmaajo in amar uu soo saaray la diido waxa ay Farmaajo ku tahay dhaawac weyn oo soo gaaraya awoodiisa fulineed aadna u wiiqaysa in hadda iyo wixii ka dambeeya amarkiisu ku dalka ka shaqeeyo sidoo kale waa bahdil shakhsiyadeed uu ku sameeyay naftiisa iyo kursiga madaxtinimo diidmada iyo ficilada Roble waxay si cad u muujinaysaa in awoodda ugu sarreysa ee dalka uu maanta isaga leeyahay kadib markii 7 bilood ka hor ay Farmaajo u dhamaatay muddo xileedkii sharciyada siinayay way adkaan doontaa in mar dambe amar ka soo baxay Farmaajo oo aan Roble raali ka ahayn inuu dalka ka shaqeeyo inta ka harsan doorashada madaxweynaha cusub waaba haddii uu Farmaajo ku dhiirado mar kale maxaa Farmaajo ku qasbaya siyaasadda qalafsan siyaasadaha iyo go'aanada qariska tuurnimada ah ee mararka qaar uu Farmaajo qaato waxaa loo sabaynayaa laba cilad oo ay adag tahay in xal loo helo cilada koobaad waa Farmaajo oo madax adag oo mar waliba rabitaankiisa uu ka weyn yahay danta guud iyo wax saxan cilada labaad waa la taliyaasha ku wareegsan iyo kuwa xindaabkiisa ku jira oo aan awoodin in ay u sheegaan marka uu qaldan yahay balse ku raacaya ugana sacabtumaya go'aan kasta xitaa marka uu Farmaajo go'aansaday muddo kororsigii fashilmay waxay la taliyaashiisu ay u sheegeen inay dagaal ku qabsan karaan magaalada Muqdisho oo ay haystaan ciidamo ku filan iyaga oo ogaa in xaqiiqdu ay taas ka weyn tahay balse ay ka ahayd oo kaliya in dagaha Farmaajo ay ku dhibciyaan eray ay maqalkooda ku raaxaysanayaan waxaan hadda sugnaaba waa siyaasadda xigta ee qariska tuurnimada ay u qaata Farmaajo ee haddana dib ugu soo laabata